بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي waxaan u wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka ka ah bulshada maanta waxaan martin u ah Sufyaan oo inta badan taqaanaan labadii sano ugu dambeysay warbaahinta markaasi Soomaalida aad markaasi u dhex jiray Sufyaan Sadow أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وري آدم ما سنتهي وحن سلامي يا بعض كاه channel thank you very much وما سنتهي waxaa maalmaha ugu dambeysay waxaa jiray in aad weer afka ku qaaday gabdho Soomaaliyeed adigoo ku tilmaamay inay yihiin koox diinta weer ku ah marka ma jiro waxyaabo cadaan ah hayso halkaas oo ku eedeystay bulshadan ayaa eedeysay ama gabdhadan ayaa eedeysay social accountability waxa la haajiro in markaas isla xisaabtan bulsho macnaha mis weydiisay ama macnaha cadeen ma haysa ku saabsan waxyaabaha sheegtay وري آدي هذا ما سنتهي ما أنا ويرين قبل جونية وحن ويرين system أما النظام وحن كهالليني تتبع أتاجن نظام كستيني فليا مثلا أنا جا أما كوحدة تركنول وحن أتاجن هو والله لنا إنه ودن كله نقد دستور كإسلامك ضد نجسه هو الجيدا جرا أن ويرنا الشقاق أو والله لا ودن كله نقد ديمقراطية وحليلها وحن ويرنا نظام كليرا ديمقراطية ده ay ka soo horjeeda nidaamka islaamiga ama diinta islaamka ama xukunka islaamka soo horjeeda qofka marka waxa lagu fiiriyaa nidaamka uu wado waxa uu champion gareyn waxa uu u ololeynayo hadii marka uu qofkii u ololeeyo qodobo ka soo jeeda diinta islaamka ka soo jeeda diinta islaamka sida مثلا in ninka feera laga gabdhaha feer qaloocan laga abuuray ay wax khuraafaad toon jirin haduu qofkii u doodo macnaha in cunug ku qaan gaaro 17 sano ama 18 sano hadii qofkii uu doodo in qawaamada ama reerka maamulkiisii naagta ay leedahay ninka uusan lahayn hadii loo doodo zinadu wax xalaal ah inay tahay dadkaas oo dhan waxaan dhahnaa al-shiqaaq waa group ka soo jeeda diinta islaamka dumar kaliya ma rag iyo dumarba waa leeyihiin sidaan u sheegnaba waa maasantahay gabdhaha ayas waxa kamid ah Faatiha Cabsiya oo saxaafida isla markaana oo leeso tacdiida ka dhanka haweenka waxaana markaas adigna ku tilmaamtay inay kooxaas kamid tahay cadeeman ma jira oo gabdhaha ay kamid tahay marka oo xaqiiq ah marka bulshada loo laagtay waxaan aaminsanahay shakhsi kasta oo Soomaaliya oo luqadda Soomaaliya ku hadlahay wuxuu awood u leeyahay inuu waxaan anaga dhageysto dadkaas al-shiqaaq aan ugu yeerana wixii ayagu ay yiraahdeen la dhageysto okay cadaynta waxaan ku irisa hore ku sheegaba meeshan waxa iska soo horjeeda laba diinood iska soo horjeeda diinta dimuqraadiyadda iyo diinta islaamka qofkii diinta islaamka uu ololeeya waa qof islaam qofkii diinta dimuqraadiyadda uu ololeeyana waa qof gaal ah oo diinta islaamka bannaanka ka marka diinta ma fikir ka artana diimaysa diinta haysta anagu diinta islaamka aan isla laakiin waxyaaba qaar waxa lagu eedeeyaa in fikirkaada ama ragga qaarkood ee fikirkooda ay diimayaan haddii taas la sameeyay xukunka waxa iska la dadka islaamka oo dhageysanaya okay waxa ka rabaa adiga waxa lagu tilmaamaa inaad tahay ama u muuqataa misogynisto waxa loo yaqaan ragga aad u nacab haweenka markasta haweenka ku dhigan tahay waxyaabo badan markaas hadda ugu dambeysana haweenka oo gaar ma la dhihi karaa maadaama misogynistaha waa qof shakhsi ahaan wax ku awuuran in haweenka isku dhaco haween yar dhaqaaqa markuu arkina uu xanaaqo taas ma la dhihi karaa in adiga kugu dhex jirto ama ma la dhihi kartaa inaad misogynisto tahay oo aad u nacab haweenka وري أفر حسن له نين مساجين استا أفر حسن كرسي. أوكي وحكى وربا مكوري ساس الشعب بحسي وحياوس وصوب بنكتش دور شيء مارك كلا دبن وحكى بيدا إن هواين كذا أصوات بتقول باهنتا وصوب بنكتي نعيد كوجه استاجرتو أيوة وحنا هاي مرقاتي نا يقول عم مغدين وحنا ونيك واسقمنا عنا حاسكي ونعيد كوجه استاجرت بركان بحيث جديد أصوب بنكتي هواين كباهنتا. waxaad moodaa in aad ku jirto dagaal si gooni ah u samaysan laakiin aan kaga jawaabo su'aashaada oo kaga jawaabaya waxaan ka hadlaynahay waa laba nidaam isku soo horjeeda diinta islaamka dadka u dooda iyo dadka dimuqraadiyadda u dooda annagu waxaan haysanaa nidaam shakhsi kuma dhigay nidaamkaas waxaa la yiraahdaa diin dimuqraadiya la yiraahdo wadankeena la keenay oo annaguna aaminsanay sankana loo geliyo oo dastuurna loo qoray waxaan ka hadalno waxaan u ololeyno in aan ka takhalusno waa nidaamkaas wuxuu leeyahay dad wadu leeyahay dadka wada dad ay keensadaan shakhsiga anagu aan rabno ama aan rabno inaan dadka bulshada tusino waa dadka ducaada u ah nidaamka la yiraahdo dimuqraadiyada anigu afar xaasaan leeyahay masaajidista lama dhigi karo in afar xaas leh ragga afarta masaajidista hay waa nooc kale
haddaadan aqoonteeda aadan lahayn waxaa kaloo meesha ku jirta bandhigitaanka aan soo bandhiga gabdhahayga horaan u sheega 100 maran ka hadlay waxay ahayd inaan uga hortagno nidaamkii gabdhaha hadda aad sheegaysa mid ka mid ah ay keentay oo ahaa zinadu inay xalaal tahay guurka in la yareeyo iyo wixii la mid ah annagu marka waxaan kasoo jeednaa dhinacii diinta islaamkaan kasoo jeednaa waxaanan kasoo horjeednaa dadka aaminsan ninku inuu halnaa guursado ama uu iska dhaafa guurka laba cunug in la dhalo iyo wixii la mid ah dadka aaminsan gabadhu inay reerka u taliso ayadoo qawaamada leedahay dadka aaminsan zinadu inay xalaal tahay dadka aaminsan dumarku inay ragga la siman yihiin nidaamka noocaas aan kasoo horjeednaa marka shakhsiyan ama personal ma aha dhambaalka aan wadno ayaa sidaa u dhigan waa dhambaalkii xaq ahaa waa dhambaalkii islaamka waa masan musharax madaxweyne absolutely laba arrimood oo markaas waxaa jirta adiga soo bandhigtay ama mid ka midna lagu eedeeyay ah inaad dad dalaysay ama aad dishay gacan gurilaha tahay mid ka midna waa calanka Soomaaliya oo aragtay madaxweyne noqotay ayaa markaas diiday sidee marka isku qabsan kartaa xilka oo tartamayso iyo adoo mina eedeysana ah sidee madaxweyne noqon kartaa well arrinta eedeysanimadu runtii waa la xaliyay haddaadan adigu la socon oo aadan ogeyn beenay noqotay marqaatiyaal badanaa soo baxay oo goobjoog ahaa kuwii igu andacaynayay goobjoog ma aysan ahayn waa dad kutirkuteen waday waxaana la ii weeraray marka dhambaalka arrinta ugu dambaysa oo tiro ahayd calanka daraadiisa la ii weeraray iyo calanka inaan rabno inaan bedelo su-aashaadu marka waxay ahayd siyaad rabtaa waddanka inaad madax uga noqotay aad rabtaa calankiisa inaan bedelo waddanka calanku diin ma aha calanku waa maro gaal noo keenay calaamad kirishtaan ay ku jirto midii diimaha ka lagu caabudo ay ku jirto waa qasab in la bedelo cilmi baaristaas adiga yaa kula sameeyay waqti intee la kugu qaatay inaad maartay baaritaan waa mid oo academic ah qaab academic lagu hadlayo muddo in calankaas oo yahay mid markaas qaldan ama sida aad sheegtay marka adiga yaa kula sameeyay baaritaankaas oo academic ahaan well waxaan muddo inaadan runtii aadan researchka aan banaanka soo dhignay ama hadda aan ka hadalnay almost hal sano baran ka hadlay inaadan fiirin haddaad fiirisan inaadan iska dhagatiraysid xaqiiqadu waxay tahay calanka Soomaaliya hadda aan haysano waa runtii aadan uga macnaha uga lalaboonay inaan ugu yaro calanka Soomaaliya because Soomaaliya aan ahay mana iqal calankaas calankaasi ma aha calan Soomaali ay samaysay banaanka soo dhignay taariikhdiisa ama academy aan ku baarno ama halayla baaro ama kaliya aan baaro muhiimadu waxay tahay waxaan keeno waa xaqiiq waayo ilaa hadda lama hayo qof Soomaali oo nagala dooda aan ku dhameeyo qof Soomaali nagala dooda lama hayo facts aan banaanka soo dhignay wax xaqiiq wax la taaban karo oo la diidi karin xaqiiqdu marka waxay tahay calankan uma qalma calanka Soomaaliya annagu waxaan rabnaa inaan dhisno dawlad islaama waxaan musharax u ahay waxaan u ordiyaa inaan dhisno jamhuuriyad islaam oo Soomaaliya naad jamhuuriyad dimuqraadiya naad mid federaal ah waxaas oo dhan marno inaan ka takhalusnaa calankan gaaladu sameeysan oo sixirkaana inaan isna ka takhalusnaa waana muujin waa asaas dad badan oo Soomaaliyana oo far badan waa nagu taageeraan maanta taageerayaal xisbiga ugu weyn ahsaabta siyaasadda ee Soomaaliya كوتر بنديرة أما عندي دبي كده أو مركز دك صامك لجوا دبي وين هو كاسبلا مكوريسا waxaan u maleynayaa inaad عندي ده هذا مركز دبي وين أنت مركز صومالي مرة في شو ودين حاجات waxaad u malaysaa inaad runtii aadan sharciyada xataa dimuqraadiyadu hadda maanta waddanka yaalla inaadan xataa waxba ka aqoon because calan diid wax la yiraahdo ma jiro calanku waa la diidi karaa كوتر بنديرة وقضب بنا أنت قفك صومالي على قفك دي tii waxaa ka hadlaysaa 1960 ay dejiyeen talyaanigu ay dejiyeen ha hadda waa tii talyaanigu qoray because talyaanigu wuxuu tala galay Soomaaliya xur ma qaatay ma adiga facts aan ka hadalno facts waxa waa academic wadana dastuurka Soomaaliya hadda yaala iyo kii horeba talyaaniga qoray haddaadan ogeynaa fiiri haddaadan ogeynaa soo talyaanigu marka meeshu wuxuu ku qortay qofkii calanka ka soo horjeeday inuu wadani uusan ahayn therefore la ciqaabo dastuurkaas oo u dhamaatay haddaadan ogeyn sug Soomaaliya maxaa u taqaan marka dhulka Soomaaliya ilaa inta u taqaan xadkiisa dhulka Soomaaliya waa horaa loo sharxay waxaan hadda ka hadlayna ma kaman aanan hadlin ما هذا السؤال شو ودينا سومالي إلا أنت وقتها ومالك استو سومالي ودق جارسي يموت قانا جيل ومالك استو سومالي ودق دول سوماليا مركب حارة أنا هذا الشرع الإسلام حكم سمع ومالك استو سومالي ودقو شرع الإسلام أيارت أنا حكم شرع الإسلام كم ماشي أربعة كأنه ودولك الصوماليا ما أنت لو يقانو دولك الصومالي لو يقانو ودن كاس لو يقانو الإسلام كأيارت أنا حكمته ما كان الشباب هذا بدأ كوجوكت مياه كان قاعدة كلامية كان داعش مياه كان أصرنا مياه كان أو اتحاد مياه كان إسلام واقعي الإسلام كارتين ضرب حكوت. وحنو ملينا يا وحدو بهانتها education من دب وحلقوا برا because دور إسلام مجرد وجرا خير فرقين جت إسلام مجرد دور إسلام ما فرقوين مجرد وحلينا دور إسلام مجرد هل إسلام بساجر كتابك جامعة سنة رسولك بس أصلاً كلهم الشباب هذا الصومالي وحتى هذا الحكومة من شرع الإسلام إسلام كقعان لو وقبل واحد شوي سمسا رجم سمسا حكي سمسا أديك مرة بحاول ودون بركة قال سلام قال السلام عليكم عوضو أرنت ماشي أنا ربو وسؤال سوى عن جواب أو عطون لا لا بالهين
kitaabka jaamaca ee Allah subhanahu wa ta'ala uu noo soo dejiyay ee dastuurka dhameystirana ee rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ahadiithii ay la socdaan uu noogu soo fasiray waa dastuur dhameystiran waxa ku taala gacanta in la jaro waa jaraynaa gacanta شباب ويسمى سلاس هذا ويسمى شباب أنا هالليس ما يعلم حقود أنا هالليس ما الشباب هذا وحنا إسلام هذا حكومينا ولا الدجالسي أدين حقود وني واحد ملينا يا قفك كور فردية ونين مشرحة وفهم سنة أنا إيسو نين مشرحة الحزب تلقونه اللي هذا هاي قاعدة وحا ويديس وحنا نقول آمن سنة هاي ضد كلا تهاي قليني هذه سواشة وحد بحيل سواشة إسلام حكومي إسلام قاعد حكومته أنت هذا أشكت على الشباب ويشكت علينا سماعان marka adiga micnaha maxaa ugu duunaan kartaa qof kasta sidii la shabaab dadku lacbi waqti isu qof kasta oo islaam ah oo diyaar waa in uu shariicada islaamka wax ku xukumo kitaabka jaamaca sunnada rasuulka oo ay ku jirto in hadii qofku tuugiya gacanta laga jaro hadii uu zina galo ama la jeedalo ama rajmi lagu dilo qof kasto islaam oo sidaas sameeya ma aaminsanana fikirkan aaminsanana kaas waa ciidaha kaleeto oo aad sheegayso oo aad leedahay waa kula mid iyo ila mid ma aha anigu ayagu kuma hor fadhiyaan waxa ku hor fadhiya muxtarim gudoomiyaha xisbiga talakunool musharax madaxweyne professor Sufyaan Sheekh Axmed aniga ay weydii waxaan qabo dadka kale waxay qabaan shaqo ku mid okay professor xisbiga talakunool fikir nooca ka qabaan shabaab iyo dhibaatada Soomaaliya ku haysta aniga al-shabaab waxa kuma naqaan wali ma aanan baran daraasaad kuma sameeynin lama aanan kulmin shakhsiyaad kama aanan arkin therefore sameeyaa Soomaaliya waa ku rahaysaa urban ficilo ay sameeyaan oo sheegtaan iyaga xaqirtaas ma ficilo ay sheegtaan ama ay sameeyaan kama horeeyaan laakiin kala leexina sameeyay karaa Sufyaan ma aan xaqiiqda aan kaaga jawaab su'aashaada marka waxaa jira caalamka waxaa jira waxa la dhaho red herring ama macnaha in message-ka dadku wado dib macnaha dhinac kale laga maro wadankan waxaa ku soo duulanimanaya al-shaqaaq al-shaqaaq waxay sameynayaan wax alla oo u saamaxay awoodina hayaan marka lagu daro intay ficil geystaan inay qolo kale u saariyaan waxaadna maanta ogtahay haddaanan been isu sheegaynin ama aadan iska indhatiraynin ficilo badan oo la damcay in nimankaas sheegayso madaxa loo saaro inay dib ugu soo laabatay al-shaqaaq dib ugu soo laabatay oo aysan beento jirin marka waxaan rabaa inaan ka taxadar aan ku geliyo oo aan ku iraahdo anagu haddaan xisbiga talakunool nahay qof al-shabaab weli ma aanan arkin lama aanan hadlin ma aanan maqlin waxyaabaha la sheegayana waxa u cad bulshada Soomaaliga oo lagu dacaydeen al-shabaab waxa u cad bulshada Soomaaliga qaar badan oo lagu sheegayo inay dacayad been ay tahay oo sirrun ahayn waa maasanta xisbiga marka qaabkee rabaan doorashada qaabkee markay wan food ay gaarto maarta mas hadda ay rabtaan qayb gashaan doorashada markasta oo ay tahay in doorasho loo galo wadanka maanta haday noo suurta gasho waxaan diyaar u nahay xilka inaan la wareego dastuurka Soomaaliya see warta dastuurka Soomaaliya dastuur gaalnimo diinta islaamka soo horjeeda doorashada soo qosh marka inaan tirtirnaa aayad quraan waxay leedahay walaal talbiso xaq qabil baad marka xaqa dardina baad ku akhas sidee rabtaa adoo xaq sheeganaysa inaad dastuurkan baad doorashada aad gasho waxaan ku xumaayad micnaheedu inaadan aqoonin waxa loola jeedo marka ha gelin badaas تحدر كقوليو تحدر ما هو سؤال كودي يجاوب سؤال شدي وجوا كجوا لكن آية القرآن سؤال كودي يجاوب آية القرآن كهكود كرين بكوس ماشي دكتور ماشي دي ما واكو شيء كو أكاجوا سؤال شان أكاجوا سؤال شان سؤال كودي يجاوب وأكاجوا وهذا تري الدستور كان ماشي يلا هدي أنا ربين إن قاطن سيودكم أموريسن سوساس ما سؤال شان مايا سيدي دورشة وقلا سامنا ما دام دورشة وجيت له وقلا إتهبا دستور كان أصبح الدستور كان حدي يا شيء دورشة قابل وقلا كذا دستور كأقوسين مركز دورشة وقلا سام وحرمنا وحدي أن وحن أسعنا أما لنا قاعدة ده إن أن وطن كصومالي أن حكونا الدستور كأما دين الإسلام كا وحلا وحين نجوري ماذا مركز القدر الدستور كان هذا القرآن وحرمنا الدستور أسجينا بدل سفيان يا أذي حسب قال يا ملقلي أنا اسمه القليل يعني كوا أنا جو أريد تلقون وضد الإسلام أو صوماليا أو إسكوي من فكر أو عن قبيل لهين أو إسكوي من فكرة إن وضن كلهم عملوا الدستور كإسلام. سفيان لك خارج حشة كان إن حسب قلت تلقون أنا شجع أدو قابل هذا أدو قول ما حق لا تص. وقف دعاية لا ما أنت وحكوا فرن هذا السوشيال ميديا ده التلفون كقال فيه حسب قلت تلقون وضدك وكومية ينتويه همين كستال وصبيرة ضد كحلية ضد تاجريالا وحنقول أنا حافظ مال فربنا كلنا وحنا حسب جوين صوماليا ما أنتي وكم بديسن فكر كم بديسن دين الإسلام كإنه وضن كلهم عملوا من هي حزب قبيلات كل سنة أمقود سيدو قوة كلايهين marka dadka su'aasha u baahan runtii in la weydiiyo wax xisaabta kala siyaasadeed talakunool banaankan ana warkan wacdiya qof kasta oo Soomaaliya oo nadal badan waxaan diyaar u nahay inaan la fadhiisano Sufyaan dadka qaar waxay sheegaan dhanka psychology baga aan inaad attention seeker wax loo yaqaan oo raba qof in bulshada marka waxa ku soo gashay dad xoogan marka balni kara waxa taa qof attention seeker waxay igu yeereen dilaa waxay idhaheen naagu kufsaday waxay yiraahdeen lacag soo dhacay waxay yiraahdeen waxaysan igu yeerin male waxaasina waxa caadada qofka marka loo jeedo xaq inuu wado in lagu la dagaalamo waxa naga soo jeeda group la yiraahdo al-shaqaaq
oo raba waddanka in dimuqraadiyad la geliyo diinta islaamka laga titiro waxay samaynayaan wax alla wixii suurtagal oo ay ku cambaaray karaan qof kasta oo ay arkaan inuu diinta islaamka u taagan yahay wax la yaab la maaha waa wax hore noogu dhici jiray haddana waa ka soconayna dadka qaar waxay aaminsan yihiin ama ay kugu dhaheen sida social media ka arkay inaad tahay qof narcissistic ah oo markaas narcissist waafaqsan tahay is amaano jecel inuu amaano oo dadka aqoon badan professor ah boqolaal kun maartay sheeg ah wax soo bartay marka nin aad marka isku buurinaa tahay oo narcissistic marka taas maxaa kale waa weli dacaayadii lew dacaayadii al-shaqaaqa ay nagu bilaabeen way al-shaqaaqa dagaal kula jirnaa ayagaa dacaayada fidiyeen ayagaa dheheen dad u dilay ayagaa dheheen dad naagu kufsaday waxaan la samayn mal waxaasoo dhan hadda midaad sheegaysa narcissistic iyo attention waxaasoo dhani waa sidii rasuulka sal allahu alay wasallam lagu tilmaamo wey rasuulka sal allahu alay wasallam markuu yimid waxaa la yidhi waa majnuun waa saaxir waxaan lagu samayn male qofku markuu xaqa wado qofku markuu xaqa wado dibida ka imaaday leeman badan maartay sheeko dalal badan kusoo cesheen dadka qaar waxay leeyihiin duqo minaha buufiska ku dhaco xoogaa maskaxaha hataa caadi ma maxaa cadeynaya caafimaad qabtay waxa cadeynaayo maadaama aragtay Soomaaliya madaxweyne u noqoto maxaa cadeynaya caafimaad qabto wali ma aragtay ninkan anoo isbitaal jooga ama ninkii waa jiray hal qabto waa wax la yiri wax la yiri weeyna Allah rabaa inaa ka jawaabto su'aad waa kaaga jawaabaa caafimaadka cadeyn macnaha maxaa cadeynaya caafimaad qabto wixii la yiri macnaha hadda waxaad tirtada bulshada ku dhahay waa bulsho aragtay bilaa xukunta marka waxaa rabaa warbaahinta dadka ku daawanayaan maxaa cadeynayo inaad caafimaad qabto anigana caafimaadka waxa cadeynaya isbitaal ma tago meel kale ma aado gurigeygan joogaa nin shaqaysta reerihiisa dhaqda aabba ah intaasana waa qofku waxa loo caafimaadka loo qiyaan waxa cadeynayo kaleeto inaan caafimaad qabo oo dadka saas dhahaya ay waalan yihiin inaan caafimaad qabo inaan jeclahay aayadaha quraanka kitaabka jaamaca sunnada rasuulka in la isku xukumo allahna subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri quraanka iyo diinta waxa fahmo waxa jeclaado ulul albaab ulul aqli dadka aqliga iyo maskaxda saaxiibku ah marka definitionka waalidu dhinaci kale loo gadiyay annaga dadkeena diinta jecel oo islaamka ah waxaan dadka aqliga leh aqliga u saaxiibka madaxdooda uu degan yahay qof kale ma jeclaa karo diinta islaamka qof aan aqli lahayn ma jeclaa karo dadka igu dacaadeynayo oo raba dimuqraadiyadii inay wadaan oo dhahay waa nin waalinta hadda sheegtay psychopath narcissistics attention seeker murderer waxaasoo dhan dadka dhahayo waa groupkii al-shiqaaq oo ujeedadoodu ay tahay maadaama dhambaalka aysan dili karin inay dhambaal wadaha dilaan waa maasantahay inta ku dambeeyay dadku ceelsan dad maraa waxaa tiri waa lii bursanoo dad ceelsan weerar baa lagu hayaa BBC iyo waxyaabo kala sheegtay markii hore markii dadkaas ina raadiso Soomaaliya dadkaas adeed bilaa ay sheeg wax dhibaato ma kulanta dadkaas waa taqaana alxamdulillah ilaahay dhibaato ma kulanta soo weerar ilaaha iga badbaadiyay alxamdulillah ilaahi Allah subhanahu wa ta'ala aasuku Soomaa alxamdulillah waatahay waa maasantahay shiftaan assalaamu alaykum waatahay daawadayaal waa Sufyaan ayaa warsanayay professor Sufyaan oo taakeeda qaar u yaqaan afar xaasada oo magac badan yahay marka waa inoo mar kale insha Allah bye bye mac salaam